السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب بيال كسو دوادا برنامج كيني وحكبرو وأينو إنت بدن كجاه هذا الشيء حويانا إيو أريمها الديجان كين إيو دلكين هو يقصية دور كان وحنو كجاه اللينا بهال إدين عجب كلين دونا إن بدن بعد مقشين نور إلهي والدبيعي هذا ركتين أما مقشين أو روح ضاي كمتاعي لكن ما آمن يسا نورير وآضير وديجان كين كنور ayaa wuxuu leeyahay nuur dabiici ah ama laambad leh in badan baad magaciisa maqasheen waa barteeni youtube-ka inoo walba ka wada xiriiri jiray socoto iyo barnaamijkii caanka ahaa ee wax ka baro aynu ka hadli jiray arrimaha deegaanka iyo xawayaanka waa tahay doorkan waxaynu kaga hadli doonaa bahal aad heeso badan ku maqasheen deegaanadiina in badan magacyadiisa meel loogu magac daray jirto dad magacooda loogu magac daray heeso iyo gabayo iyo maxay ahay tooy hal abuur fara badan oo su'aal ka yiri waa ka halkan idinka muuqda waxa laga yaabaa in badan oo idinka mid inaydaanay garanayn subhanallah calooshiisa ayaa waxa ka iftiimaysa oo ka muuqata xabad laambada habeenkii markaad maraysid meelaha haddaad aragtid waxaad oranaysaa talow halkan yaa faynuuska ka shidanaya yaa tooshka ka shidanaya yaa halkan jooga cidda halkan wax ka shidanaysa waayo daba waa kuma intii aan garanayn hadda loo sheegayaa intii garanaysana way garanaysaa waa bahalkii loo oran jiray garabidan weeyaan garabidanku waa qaybta kamid ah cayayaanka yaryar ee duulduula inkastoo inta badan aanu dabjoog noqon bini'aadankana aan aad isugu xidhnayn intiisa yar ee caloosha qaybteeda dambe ayaa waxa kaga jirta nooc mid guluub oo kale ama faynuuska oo kale wax la mid ah oo saa u ulul uga baxayo habeenkii markaad duxooyinka maraysid ama xilli barwaaqaad ayaad waxaad arkaysaa iftiiman ama light duurka iyo dhirta cagaaran dhexdooda ka baxaya faynuus dabiici ah waa kan waxa la yiraahdaa garabidan ilaahay baa sida u abuuray inagu Soomaali ahaan waynu naqaanaa laakiin intiina badan waxa laga yaabaa inaan arag xilliyada abaaraadka lama arko xilliga barwaaqada ee cayayaanku sida caadiga ah yar ay maaragtay baalaleedahay ay dhashaan ayuu la socdaa waa sawirkan yar idin muuqda waxay isku qolo iyo isku team noqonayaan xawayaanka yar duulduula shinnida ayaa laga yaabaa inuu in yar ka weyn yahay ama ka yar yahay ama leeg yahay uu noocyo badan yahay laakiin afka guud ama af Soomaaliga waxa la isku wada yiraahdaa garabidan heesaha jacaylka ayuu ku jira suugaantu ku jira afkeena ayuu boqolaal meelood ka soo galaa garabidanka bidan ba macnaheedu waxay noqonaysaa wax muuqda oo la arkayo iftiimaya marka calooshiisa yar ee bidaamaysa ilaahay guluubka dabiiciga ku riday ayaa wax loogu bixiyay garabidan waana bahalka yar idin muuqda waxyaabaha cajaayibka waxa kamid ah waa xawayaan yar oo ilma qabataya oo aad u yar maalintii waxa laga yaabaa inaad arag laakiin habeenkii markuu dooxa jooga meel walba iftiin yar waxa laga yaabaa 10 mid oo isaga kamid ah haduu joogo iftiinku waa hana haybsan waxaad moodaysaa in gawaari joogto meesha aniga idin la hadlayaa ee barnaamijkan yar wax ka baro idin ku sheegaya ayay ugu dhacday anigoo dooxa maraya inaan arkay geed cagaaran dhexdiisa laambada yar ka baxaysa inta le wax maxameeshin jooga gulubka yar wax toosh waxaan ku fikiray marka toosh yaro il yar leh ba meesha ka iftiimaya ee soo qaado waxaan baa u tagay xawayaanka yar markaas soo qabo iga cararay wuu noocyo badan yahay sida caadiga ah waxa laga yaabaa inuu ka deegaankeena joogiyo ka deegaanada kala joogaa ay kala duwan yihiin laakiin afka guud wuxuu noqonayaa cayayaanka yaryar ee garabidanka imisa magaalo ama imisa dad ama imisa erey bixirood baad garabidanka ku maqasheen intaan ka ogahay baan idin sheegay